تليها إيه جبلان ما إسرائيل سحرجيد وبنا شرك wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Jubbaland Maxamed Yuusuf Cumar ayaa saaka dhaawac ka soo gaaray miino ay kooxda dhagarqabayaasha Al-Shabaab ay ku duugeen dhulka ila wareedyo xilkasa ayaa noo xaqiijiyay in wasiir Abu Yuusuf uu soo gaaray dhaawac kadib markii miinadu ay haleeshay mid ka mid ah kolonyadii uu la socday waxaana loo soo qaaday gudaha magaalada Kismaayo iyadoo la sheegay in xaaladiisa caafimaad ay hadda tahay mid wanaagsan taliska ciidamada Jubbaland oo war ka soo saaray khasaaraha gaaray kooxda Al-Shabaab ayaa sheegay in laga dilay 135 iyadoo oo meydadka Al-Shabaab loo soo bandhigay warbaahinta sidoo kale qoraal ay soo saartay dowladda Jubbaland ayaa intaas ku daray in ciidamada ay hawlgalka ay sameeyeen ay ku furteen hub aad u fara badan oo ay wateen Al-Shabaab kuwaasi oo ay kamid yihiin qoryaha RBJ PKM AK47 iyo kuwa kale maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dowladda Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka ayaa kordhiyay hawlgallada ka socda aagaas waxayna la wareegeen deegaano dhowr ah oo ay ugu horeeyaan Buulxaaji Harboole Miido Bibi iyo waliba deegaano kale wixii warar ee ku soo kordha hawlgallada ciidamada waxa kala socon doontaan baraheena bulshada ee Rasmi Radio fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay barahayaga bulshada channelka subscribe noo dheh noona like barnaamijka noona sii share si uu dad badan u gaaro mahadsanid